koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waryaalahan war adeer anigu maanta shidaax baan ku jiraaye maxaa meesha ku haysaan anoo fadhi xumaanine wariya aflagaadi tan toonan adkaysidu kormee wariyaan shitaama gorda u sharakiisha mugdo war maanta geedka ayaa nadiifiyey geedku sidii waa ka qurux badan yahay maanta war aan war idiin sheegay maanta war culus ayaa soo baxay oo mar hore loo baahnaa maanta waraa ka soo baxay wasaaradda amniga amar cad ah waxay tidhi shabaab qofkii la tacaamula canshuur siiya garsoor u doonta la tutuuda si walba oy tahay la macaamila man tashabbaha qawfaha minhum ayagoo ka mid yaha maanta laga bilaabo waxaana lagu qaadi doonaa qodobka lagu qaado qofka shabaabka waana xaaraan qadcana maanta ma ogeyn haddaba la iska ilaaliyo waxay kale wasaaraddu xustay oo ay ku dul istaagtay ganacsatada toorotorow lacagta uga dabageyda iyo kuwa xukunka u raadsada dhammaantood dariiqaa loo taagan yahay yaa weelag cidda isku dayda meesha inay aaddo wariya libeega bartiis baaragaasha kobtiis maykii biri waha toorotorowsan maseetana naftiin hafiisma ka furutaana lacagdasan halsiin sheeno libeega bartiis aragaasan kobtiisan kuu wareegdan war naga taga nimayaw nimo waalan baa tiine war niyahow baaqa aad sheegaysaan wuxuu ka soo baxay culimmada Soomaaliyeed ayuu ka soo baxay baaqa waxayna yidhaahdeen waa in la qabtaa barnaamij looga soo horjeedo yuhuudda laguna cambaaraynayo marka waxayna yidhaahdeen masjidkii barakaysnaa ee masjidul aqsa ayay dhibaato bacan ku haysaa yuhuuddu marka falastiiniyiintii iyo muslimiintii ku dukanaha masaajidkaasna dhibaato aad culus ayay ku haysaa bay yidhaahdeen culimmadu marka barnaamij yuhuuddu ha dhacdaa waa in la iskugu yimaadaa meel walbo ay joogaan muslimiinta oo masaajidka barakaysanoo aqsa la yidhaahdo iyo falastiin gumaadkeeda yahuudi hadda lee ma bilaabanine mar hore ay soo bilaabato cunugii la dhalaa qaangaaro ilmihiis ilma sii dhalaa muslimiinta iyo culimmadaba hadda lee ma ay hurdada ka soo kaceen haddii gadoon badana iyay landantiisun goradaana maradogo uti hortiya waa dhammaadee waa la eri wariya soomaalida niman dantiyo goradayaan ma eebba xeraali niman gooska ha suuqoyaan asagiir goori ay ka teeganta lamudan berba haanuna may leeyina ulmadii weeye ulmowdiin weeye ha isdaayaano dawladda Soomaaliyeed ha soo dhax gasho arrinta tan ha soo farageliso yaa leeyin wariya dagaal sokeeyo ma fayle dagaalka meelinka baahanya masaajidka al-aqsa waa meelaha la iska diyaariyo hoobasan lama haniinooda tin dagaalkama daro ba guraasar dagaal hanka doraana kan Falastiin haga ka hayto yahuud ka hayto kaasay ka qayb galnaan wariya walaal anigu wax ma fahmin ninku muxuu yiri walaal waa ruu iska haraaciyaniyo wariyaada war ma haysan ana war idii haya maxaabiistii laga soo daayay Itoobiya xabsiyada ku yaala muqdisho laga soo dejiyay goordhown waxa loo fasaxay inay guryahooda aadaan oo reerahooda la damaashaadaan ra'iisul wasaaraha Khayre jaabka uu gacanta galiyay kii meel dheer u socdina kistiisa jaabka u galiyay kii meel dheer u socdina reerkiisa uu tilmaamay inuu aado oo anigana maxas kasta igu dari waa ra'iisul wasaare Arro haya xabsiga Itoobiya kala lagu daray saxarada kugu dhig wariya haanyo maxaabiista sheegaas aan 77 kii lagu badiya widaadku artagay ee ka dhax jiray ku fiirsado wariya annaga iyo Itoobiya maxaabiis kala bedelasha naga dhaxay jirtay in maxaabiis la siiyo naga ma dhaxayd waa tag cusub ya Arro ana kama dad cusub ana Arro wabka lagu dhawyeen dhaaf maxaa dhacay isbedelka muujadid miya wariya warka lankuun leey mayba inga muuqata inoo amhaar garantiye laga jara war adeer anu gudhu mar rabe warkayga dhageysta miyaa warka haysanada Jamhuuriyadda Soomaaliland shir weyn oo dhinac walba loogu siqeeyay ku qabatay London waxaanay ka sheegtay inay xorriyadda qaadatay oo maxkamiyadda Ingiriiska ay ka qaadatay 1887 adeer hadda moodaysaan ina sidii noo kale ina 60kii qaadanay xorriyadda adeer 1887 ayaan anagu qaadanay oo rag shaqaafiyay baan ahay yaa allo dhiikramaas kugu dhacay adiga wariya wili buhur ma ihidi adi dhunsan naftaa been an sheego hayta langi dekada aani siisay lahay ma ihidiya aana waaye war adeero maanta hoostan ka yara mar lacagsanoo dekadii midba container nagaga dul dhacay marka oo nagaga dhintay adeer hal soo xasuusin wariya waa ogahay shirka Hargeysa lagu qabto buugaga lagu soo bandhigay beenta noo akhrinayso buugta akhris bareejo war al-shabaab
shabeellada hoose odayaal ugu maxbuusnaa oo halkaas ay ku haysteen muddo dhan ay ugu xirnaa ayay maanta ooda ka sii qaadeen marka Itoobiya way iska bareejeeyeen maxaabiista laga soo daayay odayaalka ra'iisul wasaare garantiisna ka simay waliba dadka maxaabiiska qabsaday waa ahlu sunna iyo dadka xeeraale u dhashay xildhibaanana dagaalamay oo askarta kamid ah waryahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump war culus buu soo saaray hadii baaritaanka lagu wado inuu Ruushka taageeray doorashadii ku guuleystay ayuu dhahay cidii lagu waday arintaas ayuu yiri aniga cafinayo ayuu dhahay ara asaga la iscafido talada laga qaadiyo anagu Trump iyo wax nagula meeray war adigana orda wararat